hadiyaduhu ma xaliyaan dhibaatooyinka, laakiin waa bilow wanaagsan. Haddii aad faraxsan tahay, micnaheedu ma ahan in ay wax waliba ku hagaagsan yihiin, laakiin wanaagga ayaa kuu muuqda. Markii aad wanaag u rajayso dadka kale, waxaa hubaal ah inuu wanaaggaasi kugu soo laaban doono. Qofka aadka kuu jecel ma ahan qofka maalin waliba ku arkaa, laakiin waa qofka mar waliba ku fiiriya. Waqtigaaga inta badan ku khasaari waalidkaaga, sababtoo ah hal bar markaad taleefoonka ka eegto siima joogayaan waqti badan. Xiriirada jacaylka waxay la mid yihiin sida shimbiraha. Haddii aad xoog u qabato waa ay dhimanayaan, haddii aad beerdaraysana waa ay duulayaan, laakiin haddii aad u qabato si taxaddar leh way kula joogi doonaan weligooda. Waqtiyada qaar waxyaabaha xaqiiqda aad u baahan tahay waa qof ku siiya waqti, ogolana inuu ku dhagaysto. Sida saxda ah, dadka daacadda ahi ma lahan saaxiibo badan, laakiin waxay leeyihiin saaxiibo rumaad ah. Noloshan aad ayay u gaaban tahay. La dhamayso waqtigaaga saaxiibo diinta jecel oo mar waliba ku waaniya. Ogsoonow, dadka quruxda badan ma ahan kuwa mar kasta wanaagsan, laakiin kuwa wanaagsan ayaa ah kuwa mar waliba qurux badan. Haddii aad gabar jeceshahay, xor ka dhig. Haddii ay ku soo laabato waxay ahaanaysaa adiga, haddii aysan ku soo laabaninna meel dheer kaama jirto. Marka qof uu kugu sameeyo waxyaabaha ku dhaawacaya, naftaada ballanqaad u samee oo ah inaad qofna wax xumaan ah ku samaynayn. Nolosha naftaada waa qalbiga ee wax waliba la wadaag. Sheekooyinkaaga waxa ay daaweynayaan oo ay taabanayaan dareenka dadka kale oo dhan. Waqtiyada qaar waxa aad u baahan tahay inaad samaynayso waxa aad jeceshahay, inaad aragto wax ka duwan. Qiimaha sharaxaadda iyo quruxda wada sheekaysiga waa isdhegaysiga. Farxaddu kuma xirna waxa aad haysato iyo waxa aad tahay midna, waxay ku xiran tahay waxa aad adigu ku fikirayso mar waliba. Aabahaagu waa shaqo yaqaan, micno ma lahan sida uu u fiican yahay iyo sida uu u xun yahay. Si kastaba, waa aabaha ugu wanaagsan dunida jira. Saaxiibkaaga dhabta ahi waa kan fahmaa waxa aynan doonaynin inaan niraahno, laakiin waa kan ogaada xaqiiqda jirta iyo waxa aan dareemayno. Ha joojin weligaaga inaad waxyar xitaa dadka u samayso. Waqtiyada qaar waxyaabahaas yaryar waxay buuxin doonaan quluubta dadka.